bilow filimka sinisihan taason ayaa sameynaya tijaabooyinka qaar isagoo isticmaalaya quraanjada yar markaana waxaan ogaanaynaa in ninkaan sameynaya tijaabada uu lugta naafa ka yahay bir ayaana ugu xiran lugtiisa waxuuna si lama filaan ugu dhacaya kursiga ku fadhiyay waxaan halkaas ka daadanaya shaybaarradii uu ku baarayay quraanjadii uu tijaabinayna waxay jaanis u heshay inay halkaas ka baxsato bilo kadib waxaana la barayaa wiil 12 jir ah kaasoo lagu magacaabo Bele waxuuna waxbarashada marayay heerka dugsiga dhexe waxuuna ahaa mid caajis badan mana lahayn wax saaxiib ah waxuuna markasta ahaa kaligiisa qof kasta oo dugsiga la dhigtana waa uu ku majaajiloon jiray maxaa yeelay isaga ma lahayn wax saaxiib ah waxuuna dareemayaa inay dadka faquuqayaan oo aysan wax danaa ka lahayn waxuuna markasta jeclaa inuu la saaxiibo gabadhan lagu magacaabo Amanda laakiin iyada ma aysan garanaynin waxayna ahayd waqtigii la qaadi lahaa sawirada fasalka xitaa sawir qaadaha ayaa si dirqi ku dareemaya Bailey inuu la hadli rabo gabadhan Amanda waxaa la qaaday sawirkii guud ee fasalka kaliya Bailey qaybta sare madaxiisa ayaa laga arkayaa sawirka maadaama isaga aad u gaabnaa waxuuna la yaaban yahay sababta aysan dadka isaga u dareemin kadibna macallimadii ayaa u soo galaysa fasalka iyadoo markaas bixinaysa cashar cusub macallimadii ayaa ardaydii u sheegaysa in looga baahan yahay inay soo bandhigaan sawirada iyo xaqiiqda magaaladooda ay hadda ku nool yihiin Amanda walaasheeda Idea ayaa tilmaantay inaysan jirin wax dhacdaha oo xiiso leh taasoo laga diyaariyay magaaladooda macallimadii ayaa xasuusanaysa inay iskuulkaani ka soo baxeen saynisyahano tiro badan kuwaas oo sameeyay tijaabooyin kala duwan waxaan u sii raacisay haddii aad sameynaysaan waxaan idiin sheegay waana isku raacdaan labo ma jeclaan filimka ka dhexgalo balse haddii aad weli muuqaalka iska daawanayso aad noo laagari muhiim ay noo tahay haddii aad nagu cusubtahayna nagu soo biir markii xiisadii dhamaatay wiilkii Bella waxa uu baaqaysa gabadhii Amanda laakiin isaga ma aysan la hadlaynin oo waxay la hadlisay saaxiibteeda markaana Bella isagoo fuula saqafka sare ee dugsiga ayaa waxa uu arkaya laba wiil oo ku maadsan iyo wiil kale oo ka mid ah ardayda wax uu go'aansaday inuu caawiyo wiilkan isagoo markaas wiilasha tufaaxiisii ku tuuray isagoo markaas ugu dhuuntay saqafkii sare laakiin macallimadiisii kor saarneed ayaa markaas u yeertay iyadoo markaas ku tiri maxaad halkaan ka haysaa waxaana markaas arkaya wiilashii waxayna wiilashii bilaabeen inay codsadaan wiilkii yaraa ee Bele maadaama ay ka waaweynayeen sida uu cararayay Bele waxa uu markaana go'aansaday inuu wiilashaan ceersanay ka dhuunto isagoo markaas ku dhuuntay goob beer ahayd waxaana isla markiiba soo fooshay quraanjo waana quraanjadii tijaabada lagu sameynayay wiilashiina waxay maqleen dhawaq weyna baxeen iyagoo markaas u maleynay inuu halkaas Bele joogo laakiin ma aysan dhicin inay galaan guriga halkaas ku yaalay maxaa yeelay gurigaasi waxaa lahaa saynisyahano lagu magacaabo Gameltara taas oo dhimatay si qarsoodi ah kadibna wiilashii Bele ceelsanay halkaas waa isaga tageen Bele markaana wax uu go'aansaday inuu gurigaani fiiriyo oo na galo si lama filaan quraanjadii ayaa ku qaniintay waxaana markaana bilaabay wiilkii Bele inuu wareero kadibna uu dhulka ku dhaco isagoo markaas miir daboolmay waxaana isla markiiba u imaaday in halkaas ka dhawaa isagoo markaas ku dhahaya maxaa kugu dhacay markaana Bele isagoo sida u jifo waxa la gaariyay habeenkii waxaana markaan ku soo laabanaya gurigiisa hooyadiisa ayaa markaas canaanatay iyadoo ku canaanatay xilliga dambe uu socdo waxaana ku yiri hooyadiisa wax kala ma jiraan waxaan soo ciyaaraya asxaabteyda markaana wiilkii Bele waa uu saaxanay isagoo markaas aad u daalan waxaana isla markiiba arkaya riyooyinkii quraanjada waxaana markaas reedii ku dhamaanaysa inuu markaas isaga soo tooso subaxdii waa uu soo toosay isagoo markaas soo kacaya iyadoo markaas ay hooyadiisa u sameynayso quraac kadibna uu soo firiisanaya miiska iyadoo markaas hooyadiisa ay u keenayso quraacdii quraacana wax uu TV ka daawanayaan in la wareysanayo kaas oo lagu magacaabo Mr. Somerset waxaana markaas laga wareysanayo cudur ka dilaacay magaalada halka ay markaas hooyadiisa ka shaqeyso isla markiiba waxay umaanayso hooyadiisa iyadoo markaas galaaskii biyo cabitaan lagu shubaysa waxaana markaas gacanta ku qabanaya galaaska isagoo markaas jibinaya isla markiiba waa uu soo dhaqaajinaya isagoo soo aaday dugsiga waxaana markaas ku dhacaya wiil lagu magacaabo Wilhelm laakiin intuu fasalka soo galan waxa uu jabinaya albaabka dhagtiisa laakiin waxa arkaya wiilkii Wilhelm waxay isla markiiba yimaadeen fasalka macalinkeena waxa uu bixinayay jimicsiga macalinka ayaa markaas ardaydii weydiinaya soo diyaar u mitiin inaad sameeysan jimicsiga dhammaan ardaydii waxay wada taagayaan gacanta laakiin wiilkii Bele muusan taagin gacanta waxaana markaas macalin ku leeyahay waana dalag ila dagaalanta waxaana markaas macalinkii bilaabay inuu qaraaco wiilkii Bele isagoo markaas macalinkii wiilkii Bele ardaydii ku horbahdilaya laakiin markii uu Bele arkay inay markaas daawanayso gabadhii Amanda ahayd waxaana markaas qaadanaya go'aan dheeraad isagoo markaas bilaabay inuu markaas la dagaalamo macalinkii waxaana soo markiiba ushii suufkeed la tooriya macalinkii isagoo markaas darbiga kala ku dhufanaya markaana wiilkii Bele waa uu soo cararaya isagoo markaas ay ardadii la yaaban yihiin markii ay dugsiga ka soo baxeen waxa markaan la kulmay wiilkii Wilhelm waxaana markaana bilaabay inay labadooduba sheekaystaan laakiin wiilkii Wilhelm ayaa markaas u sheegay inuu isagu hubo inuu yahay nooc ka mid ah geesiyaasha ugu sareeya dunida wiilkii Wilhelm wax badan ka sheegay awoodda Bele isla markiiba wiilkii Bele waxa uu arkaya ninkii uu imaanayay markii isaga uu suuxayay markaana Bele waxa uu wiilkii ku leeyahay markale ayaan kulmi doonaa waa uu ka tagayaa markaana wiilkii Bele waa uu ka soo dhaqaajanaya halkaas isagoo markaas ninkii soo dabagalaya laakiin ninkii waxa uu soo galay gurigiisa
isagana ninkii waa uu waayay waxuuna markaan imaanaya gurigiisa. Markii uu gurigii mid wax uu go'aansaday inuu markaan akhriyo buuggii uu siinayo saaxiibkiisa Wilhelm, waxuuna buuggii ka baranayaa wax badan kuwaas oo loogu tilmaamo geesiyaasha sare. kadib markii uu buugga akhriyay waxa uu markaan bilaabay inuu markaan alaabtii ku ciyaaro, waxuuna markaan soo qabanayaa bombale isagoo markaan bombiiri feer ka dhex bixinaya waxa uuna feerkiisa kasii dhex baxaya darbiga. maalintii xigtay Bale waxa uu la kulmay saaxiibkiisa Wilhelm kaasoo siinayay buuggii majaajilada, waxaana ugu dambeeyay wiilkii Bale aqrinaya inuu isaga quraanjo qaniintay. Wilhelm aad ayuu faraxsan yahay inuu arrintaani maqlo, waxaana Bale ka aqbalay inuu ka caawiyo geesinimadiisa iyo sidii uu ku soo saari lahaa. waxaana markaan wiilkii Wilhelm saaxiibkiisa Bale Kenya gurigiisa marka hore waxay u baahan yihiin inay markaan ogaadaan Bale awoodiisa nooc ay tahay, waxaana markaas daawanaya documentary ku saabsan quraanjada si markaas ay wax badan ugu bartaan. Bale waxa uu leeyahay awood aan caadi ahayn sababtoo ah quraanjada waxay qaadi kartaa wax walba kuwaas oo miisaankooda uu saa'id yahay. isla markiiba waxa wiilkii Bale ka xiriya indhaha si uu markaas u tijaabiyo awoodiisa, waxaana markaan Kenya toorto balse ma uusan ahayn mid shiirinaya, waxaana markaas Kenya cunto aad u qortay balse ma uusan ahayn mid kale oo shiirinaya, waxaana markaas saariya daaqada isagoo markaas daaqadii ka soo deynaya. balse wiilkii Bale waxa uu ahaa mid nabad qaba, xitaa markii uu musqusha ku kaadiyo waxaa jabaya musqusha awoodiisa awgeeda. kadibna Bale waxa uu imaanaya gurigiisa isagoo markaas suud xiranaya, waxaana markaan bilaabay inuu halkaas ku tababarto, laakiin markaas saaxiibkiisa ayaa u talaya suudkii, waxaana markaan online ugu dalbiyaa suud cusub kaas oo aad u qurux badnaa, waxaana markaan ku leeyahay waxaad markaan qaadan doontaa suudkan. markaan wiilkii Wilhelm ayaa markaas u sheegay inuu markaan isaga noqon doono geesiga cusub, waxayna markaan magaciisa ka dhigi doonaan Antiboy, waxuuna noqon doonaa geesiga magaalada kaas oo lagu magacaabo Bale. markaan Bale waxa uu saaxiibkiisa ku leeyahay waxaan dareemay gaajo, waa uuna ka tagaya saaxiibkiisa isagoo markaas cunto u doonaya. markaan wiilkii Bale waxa markaan ku soo baxaya dharkii cusbaa oo superstar ka ahaa, waxaana markaan halkaas ku arkaya tuugii markuu arkay wiilkaan yar aad ayuu ku qoslaya maadaama uu ahaa wiil aad u yar, waxaana markaan Bale bilaabay inuu markaan darbigi karo. ninkan aad ayuu u argagaxaya isagoo markaas la yaabay awoodda wiilkan, markaan Bale wuxuu ku soo boodaya ninkii isagoo halkaas ku dilaya. isla markiiba waxa halkaas imaanaya wiilkii Wilhelm waxaana halkaas ku arkay inay joogaan qolo booliis ah, waxaana markaan la yaabiyay wax halkaan ka dhacay, waxaana waqti xadirkaas gacanta ku waday cuntadii, waxaana markaan arrintii ugu sheekeynaya wiilkii Bale waxauna ku leeyahay darbi ayaan fuulay, wayna soo baxayaan iyagoo markaas gudi ku soo laabanaya. markaana wiilkii Wilhelm markuu arrintaas oo dhan u sheego wiilkii Bale wax ogaanaya inuu Bale yahay sida quraanjadii oo kale oo u baahan yahay maamacaanka, waxaana u sameeyaa dabool kuwaas ugu shubaya waxyaabaha maamacaanka iyo waxa uu sameeyaa telefoon oo kala hadlo kuwaas u gali doono dhagaha, waxaana markaan ku wareejinaya alaabtii oo markaas u habeeyay. markaana waxay bilaabeen inay labadooduba wada xiriiraan. wiilkii Bale waxa uu markaan noqday geesi aan caadi ahayn kaasoo weliba badbaadiyay cid kasta, waxaana markaan lagu soo qoriyay afaaf kale ee warbaahinada isagoo markaas laga soo deynaya TV-yada, waxaana markaas dhammaan wada taageeraya dadkii ku sugnaa magaalada iyagoo markaas ogaanaya inuu ninkaan yahay superhero aan caadi ahayn, maxaa yeelay warbaahinada oo dhan ayaa markaas qabsatay akhbaartiisa. waxaana markaan arkaas oo dhan daawanayay gabadhii Amanda iyo asxaabteeda, waxaana markaan lagu sii waday markaas lagu soo daawaco warbaahinada. waxaana markaan Bale la kulmay saaxiibkiisa Wilhelm, waxaana uu sheegay in geesida ay ka soo baxaan caawinta dadka iyagoo markaas aan isticmaalin awoodaha si ay markaas u helaan taageerayaal tiro badan, laakiin Bale dan muusan ka lahayn sababtoo ah dareenka Antiboy uu helay ayaa u ahayd mid faa'iido leh. fiidnimadii Amanda waxay ku mashquulsan tahay make-upkeeda, waxaana markaan iridda ka maqlaysaa dhawaq, waxaana markaan ogaanaynaa in lagu magacaabo Vili oo halkaan yimid si uu markaas u afduubto gabadhan. maalintii xigtay waa karaa Bale waxuuna joogaa dugsiga, waxaana loo sheegay in qof ka mid ah ardayda uu ka soo dhacayo saqafka sare, sidaas daraadeed Bale waxa uu bedelayaa dharkiisa, waxaana markaas bilaabay inuu fuulo darbiga si uu markaan qofkaan u badbaadiyo, waxaana waqti xadirkaasi soo waceysay hooyadiisa, waxaana markaan halkaas ka soo badbaadinaya ardaygii halkaas fuulay. waxaana markaan markale la kulmay Amanda walaasheeda, waxaana markaas u sheegaysaa in lagu magacaabo Vili inuu markaas soo diray muuqaal hanjabaada isagoo markaas soo diray wareysi, waxayna u sheegtay inuu wareysigaas ku sheegay inuu ku dili doono gabadhan Amanda 24 saacadood oo kaliya. sidaas awgeed Bale wuxuu aqbalay in gabadhii Amanda uu cadowga ka badbaadiyo isagoo markaas u caawinaya saaxiibkiisa Wilhelm. markaana wiilkii Bale waa uu soo baxay isagoo markaas gurigiisa ugu imaanaya saaxiibkii Wilhelm iyagoo markaas isla socda, waxayna markaan arrintii dhammeed u sheegayaan wiilkii Wilhelm markaana wiilkii Wilhelm waxay markaas tusayaan muuqaalka laga soo duubay Amanda isagoo markaas og inuu markaas aabahood yahay Mr. Somerset. waxa uu nin maalqabeen oo taajir ah, wayna soo dhaqaajinayaan labada saaxiib iyagoo markaas soo qaadanaya baaskiiladooda, waxaana markaas socotay gabadhii Aidia, waxay markaas imaanayaan guriga lagu sameeyay tijaabada kaasoo Bale ka soo raacaysay quraanjada, waxaana markaan guriga soo aadiyay wiilkii Bale isagoo markaas qufilkii jibinaya, waxaana markaas ka soo galaya iridda,
waxaana markaana la yaabiyaa qaabka uu markaana gurigu u samaysan yahay isagoo markaas guriga uu ahaa wada cayayaan sida uu sii socday waxuu markaas arkayaa gabadhii ammaanteed oo markaas ku xiran goob dhala ah waxaana markaan isku dayeen oo markaas badbaadiyay saaxiibtiisa waxaana markaas maqlayaa dhawaq waxaana isla markii markaas ka soo baxaya ninkii markaas u arkaya markuu suuxayay waxuuna isagoo sidoo kale gelinayaa meel sidoo kale dhala ah laakiin gabadhii Eliyahad iyo wiilkii kale waxay markaan arkeen booliis banaan ka dhooban waxaana markaan booliiska la socday aabaheeda waxay la markiiba booliiska soo galayaan gudaha iyagoo markaas halkaas ku qabanayeen kifli aha waxaana markaas bilaabay in halkaas ka soo dayaan gabadhii amaadeed wiilkii Beeli aha waxaana markaan halkaas ku dhamaanay filimkii maanta muuqaalkan intaas ayuu ku egyahay intaan muuqaalkan mid ka xiiso badan kulmi doono sidaas iyo nabadiino.